بسم الله الرحمن الرحيم هردada waana siinada maskaxda waana dayactirka jirka aadanaha waxa jiro dad badan oo ka cabanaya hurdo la'aan ama hurdada oo ku yar daba aan isla fiirino afar cabitaan oo ku diida hurdada cabitaanka koowaad kafeega waxa uu kamid yahay cabitaanada la cabo marka la rabo in aanan la hurdinin hadaba cabida kafeega waa mid jirkeena ka dhigto mid firfircoon oo shaqo diyaar u ah waxaana jirka lagu soo daayaa hormoono ama dheecaano kuwaas oo qofkeena u diida hurdada hadaba waxa aan kugula talin lahayn in aad 6 saacadood ka hor hurdada aad joojiso cabida kafeega maadaama kafeega uu ka sameeysan yahay maadada kafeeyinka taas oo jirka ama hormoonada ka dhigta kuwa active ah cabitaanka labaad ee qofkeena u diida in uu hurdo waxa kamid ah cabitaanada tamarta laga helo هعدين حلقة عتسيحنا يسوع عبتانا تمرت لجهله أما سكرت أي كوب بدن تهاي كواس الله يقانا ما أفكر قاد لقوا يراهدو energy drinks سبب بدن أوجد وحى ممنوعة إن أنا عبنا عبتانا سكرت بدن له حلقة عتسيحن ربنا صدق إن عبتانا ذان صدق ميلاد ميل كسم يسيهن أما يكون جرت معدة كافيينك كواس أو جركين معدة أو جركين ودي دهردة صدق كلا عبتانا ذا معان كله haddii aan cabno xilliga hurdada waxa ay jirkeena ka buuxiyaan sokor jirkeenana waxa uu u bedelayaa sokortaasi kale ay ku jiin waxa ay noqonaysaa mid jirka lagu kaydiyo mar waliba oo sokorta lagu kaydiyo jirkeena ee loo bedelo glycogenka uusan jirka isticmaalinin waxa ay ka dhigan tahay in jirkeena lagu kaydiyo dux badan ama fat waxaan halkaas nooga imaanaysa dhibaato cayil ama caafimaad daro cabitaanka saddexaad ee ka qayb qaatay in aanan hurdinin waxa kamid ah cabitaanka soodhada waxa jeclaysiiyay dadka in ay cabaan waa laba midood sokorta ku jirta oo badan soodhada iyo jirka oo ay ka dhigto mid active ah dadkuna waxa ay ku jecel yihiin in ay mar walba active ahaadaan tamartana ay aad u xoog badan tahay laakiin waxa muhiim ah qofka in uu ogaado active maadada jirka ka dhigaysa inay tahay maadada kafeeyinka ee aan uga soo cararnay kafeega hadaba haddii aad hurdo la'aan ka cabanayso ka fogow cabitaanka soodhada xilliga hurdada waliba saacado ka hor hurdada qodobka afaraad cabida biyaha cad xilliga hurdada ama aan rabno in aan seexano waxa ay waxyeelo caafimaad darro u geysataa kaadi heesta sababtoo ah mar waliba oo jirkeena biyo cad aan cabno biyaha cad kaliya marka laga saaro waxa la isugu geeyaa kaadi heesta hadaba haddii uu qofkeena hurdo kaadi heestan ay buuxdo waxa ka imaan karo in dhibaato caafimaad darro ay halkaas ka dhacdo waxaana wanaagsan in uusan qofka cabin biyo xilliga uu seexan rabo si ay kaadi heesta u ahaato mid faaruq ah